أنا هرت جيب عريس عليه وسقطته مركل إيه معدن وحالي ويجري تلفون مين الكحرنت رجس نمبر أغلى صاحري xiriirka telefoonkiisa ayaa laga helay qarax macmal ah oo ciidamada amniga fashiliyeen sidaas ayayna suuragal ku noqotay soo qabashadiisa Juulaay 2014 Abriil 2018 ayaa la sii daayay kadib xukun maxkamadeed uu soo dhameystay Mustafa Maxamed Xuseen oo magaciisa afgarashadu yahay Abu Cabdallah intaasi uma noqon waana ugu filan wacdaraha nolosha markale ayuu dib ugu noqday kooxdiisa Al-Shabaab bal hay noo sharaxo Sandere sida loogu xiro gawaarida qaraxyada iga fogyihiin kuwa soo socdana ay iga dheer tahay aan gaadhay 5 daqiiqo mise 10 daqiiqo hadaa sugtid jaanis ma ku soo maraysa jaaniskaas yaraan loo faa'iideystaa waana adii markay ugu badato 3 ilbirks 2 intaas ka badan waqtigeedna gacantaas taagaysa bas walaas ugu badan hadaa taagta ayada ka buuxisay baashan intuu wada howshiisa dhaqrida ee la xiriirta xirfadda dejinta qaraxyada loogu talagalay gawaarida ayaa uu markale iska daawado barta xiriirka Facebook-ga 14 Febraayo 2019 waxa ay isku qanciyeen isaga iyo horjoogayaashiisa inaan la aqoonsan karin habeenkii markii sidaan ku jiftay suuxii 2 saac waxaan arkay anoo Facebook ku jira barnaamijkii gaariga aan aaminada ku xiraa sidiisa Facebook la soo dhigay Abdullahi waxaan ku yirina Abdullahi barnaamijka shariica ay sheegaysa runa ahayd waxa la soo dhigay Facebook habeenkeeda saddexaad waxaan ii keenay أنا فيلينك أيقا لو كان لابتوب كجرا برنامج كاس لفيرنا ذي واحد يقول لحن برنامج كان وجهه ما فهمه كاست أو لو دلال ولا فهم كر هذا مركي أنتاس ويرين حقوقنا wixii intaasi ka dambeeyay waxa ku daba jiray ciidamada amniga markan Abu Cabdallah waxa uu ku fashilmay gacanta ciidamada amniga ee aan muuqan kadib qarax uu ku xiray gaari la shaneema Soomaaliya degmada waa bari bartamihii May sanadkii tagay Mustafa ma oga cid uu qaraxa ugu xiray gaariga waana farsamo argagixiso oo uusan tala ku lahayn hase ahaatee isaga waxa uu qabaa in qadiyada uu aaminsan yahay aysan qabin qofka isaga dadka u xiga reer ahaan iyo deegaan ahaanba inuu san qarax ugu xirin gaarigiisa meel yaale ku dhaji ilaa dhaw ku dhajinaa sabab ay labaanka waa ninkii soo dameentay waa bari ninkii soo dameyn lahaa waa hadii dhabkada igu dhaco qofkii furfuri lahaa sax markaan ayadoo taas laga cabsanaay qofka mabda'an uu aaminsanaan kara ninkan inuu dawladda ka tirsan yahay oo la dili karo haddana qadad ahaan u dhow inuu haro yani qaraab ahaan ugu tago dhici karto saas darteed markaan qof loo sheego wuxuu yahay qofka dilay oo bas qoladiisa wata tamal dhahay ninkaas hebel laha saas waaye ma lahay qaraxay 8 uu ku xiray 8 gaari 8 bil uu banaanka jooga ma geysan dhimasho marka laga reebo dhaawac iyo burburka gawaaridaas xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ayaa Mustafa la eedeeyay Maxamed Axmed Muumin oo maqana ah Maxamed ayaa ahaa hagaha Mustafa xagga ficilada wuxuusnimo iyo maareynta qoondada lacageed ee argagixisada ugu tala galeen fulinta howlahaas qalabsan labada eedeysana ayaa si siman uga biiray Al-Shabaab deegaanka Buurdhuxlo oo ka tirsan gobolka Bakool 2010 qoraantii toddobaadkan ayaa si kama dambaysa loo soo gabagabeeyay maxkamadeenta labada eedeysana ee mid maqanaha yahay maanta ay maxkamadda go'aan ka soo saartay sida uu ku dhawaaqay gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida markay aragtay maxkamaddu cadeemaha dambe muujinta ah oo la hor keenay oo ay ka mid ahaayeen cadeemaha laga qoray maraga qiraalka laga qoray eedeysanaha koowaad sawirrada muujinaya saameynta gawaaridii uu qaraxa ku xiray eedeysana Mustafa iyo muuqaalka ay duubtay kaamiradaha qarsoon oo uu ka muuqdo eedeysana Mustafa oo qarax ku xiraya gaari
caddaynta lahaanshaha mootobajaajta ee eedaysanaha labaad iyo galdacwadeedkii hore ee eedaysanaha koowaad oo ay ku jiraan gungaarkii eeddii xeeraalinta iyo xukunkii maxkamadda oo 5 sano ahaa. markii ay dhegaysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada kale ah xeeryaalaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedaysanaha, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysanayaal Mustaf Maxamed Xuseen oo goobjoog ah iyo eedaysane Maxamed Axmed Muumin oo maqana ah ay wada yihiin dambiilayaal galay dambiyada lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay xabsi daa'im. ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u fulan raacfaan. Abduqaadir Ciise, warbaahinta qaranka, Muqdisho.